بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، sida walaalku tilmaamay darsigu wuxuu ku saabsanaan doonaa qasru اlأmal, rajada ama yadidiiladoo la soo gaabiyo. haddaan si kale u nidhaahnana waxa weeyaan aakhiro oo loo diyaar garoobo, oo qofku hadduu rajadiisu tuulu اlamal uu israa wax badan baad noolaan doontaa in sha allah, camal kasta dib uu u dhigi doonaa, xagga dambead ka hagaagi doontaa buu ku fakeraya. laakiin qofku hadduu nolosha si kooban uu u arko, hadduu xaqiiqada inaanu berriba noolaan karin haddii rabbi qoro uu fahmo, waxay noqonaysaa maantuu haystaa inuu maanta ka faa'iidaysto. haddaba mawduucan si aynu uga warranno waxaynu u baahannahay xaqaa'iq dhowra inaynu isla garanno. dhowr shay. ka koowaad waa xaqiiqatu linsaan, bini aadamka iyo qaabka alla u abuuray. bini aadamku wuxuu dunida u joogaa in la itixaamo. xorriyad baa ilaahay siiyey, waxaana loo abuuray qaab uu wax dooran karo. laakiin doorashada uu dooranaya waxay u baahan tahay caqli iyo aqoon iyo iraada go-aan. asal waxa uu nebigu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam, xadiidka bukhaari warinaya cabdillaahi bnu mascuud uu ka warinaya nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam. nebigaa wuxuu jeexay buu yidhi khad murabbaca square, khad afargeesla buu sameeyey. dabeetana nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam bartanku haddana khad kale ka dhex saaray. afargeeska khadkii ahaa ayuu khad kale ka dhex saaray. khadkaa dhexe xariijimuu u yeelay. waxa uu ku tilmaamay markaas, waxaan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashiisii, waa geeridii oo aanu dhaafaynin. khadkan ka dhex baxayna waa amalki iyo rajada. geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa. bini aadamku adduunka wuxuu ka baxaa isagoo weli qabyo arrimuhu ka yihin, isagoo weli wuxuu qorsheeyey ay qabyo tahay buu baxaa. waxa uu kaloo nebigu xariijimaha yaryara kale ka baxaya ku tilmaamay inay tahay acraadu dunya, mashaakilka adduun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mashkilad la'aanaynin. idan wuxuu xadiidku sawirayaa qofka bini aadamka ah rajada iyo amalka uu qabaa, yididiilada uu qabaa, inaanay xad lahayn, inay cimrigiisa iyo wakhtigiisaba ka dheertay. hada huwa alasl. laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka ahi inuu masaladaa xadeeyo oo meel ka dhow uu arko. xaqiiqada labaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay geeridu waa alxaqiiqa alwaxiida almuctarafi biha bayna annaas. waa xaqiiqada bini aadam oo dhammi uu rumaysan yahay. cid kastaaba inay geeriyoonayso. waxaad garan kartaa un dadka intii kugu hareeraysnayd geeridooda. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi moxamed la hadlaya, innaka mayitun wa innahum mayituun. innaka mayit, waad dhimanaysaa baa la leeyahay, waa qasab. iyaguna way dhimanayaan, kuwan kaa soo hor jeedaana way dhimanayaan. kullu man calayha faan. waxaa nolosha kor saaran oo dhammi dhammaantood waa dhammaanayaan baa ilaahay leeyahay. wamaa jacalnaa libashari min qablika alkhuld afa in mitta fahum اlkhaaliduun. adiga hortaa cid aanu waaritaan siinay ma jirta baa ilaahay leeyahay. adigu haddaad geeriyooto
ma yagaa waaraya baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala idan haddaan nebi maxamed sayid اlkhalq ilaahay doortay ilaahay ku leeyay waad geeriyoonaysaa waxa ka dambeeyana waa geeriyoonayaan gaaladii ku jeesjeesaysee lahayd rayb almanuun baan la sugaynaa iyo waxaan baan la rabnaa ilaahay wuxuu yidhi adiguna waa dhiman iyaguna way dhiman cid hadhaysaa ma jirto taasina waa xaqiiqo labaad xaqiiqada koowaad waa in adiga rajadaada iyo amalkaagu u dheeriye xaqiiqada labaadna waxa weeyaan geeridu inay laabudda tahay xaqiiqada saddexaad ee meesha taalla waxa weeyaan adduunku waa daaru mamar waa dhul la marayo waa meel qof waliba uu soo marayo waad dhalatay dabeetana maro yar baa lagugu duuduubo waxaa la yidhi wiil baa reerka ku soo kordhay gabadh baa soo korodhay berrina waad baxaysaa maro kale intay kugu duuduubaan bay odhanayaan waa meyda xabaasha geeya adoo qaawan oo maro yar lagugu duuduubaad imanaysaa adoo sidii iyo maro yaroo kale lagaa raaciyay baad haddana baxaysaa idan waa mamar waa meel aad marayso waa jid bini aadamku uu muddo dhex soconayo waxaana ka dambeeyaba rabbi tilmaamaya la kulanka alle qof waliba inuu rabbi la kulmi doono in la xisaabin doono janno iyo naar inay ka dambayso saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum geeridan aad ka baxsanaysaan ee aad ka rooraysaan waa idinla kulmaysaa hadday meeli ku xanuunto dhakhtar raadiya kan raadiya adduun waxaad haysato ku bixi waxaad rabtaa bal sidii aad maalma u sii jiri lahayd ayaad dadaalkeed ku jirtaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waa mulaaqiikum waa idinla kulmaysaa maxaa ka dambeeya ثuma turadduuna ilىa caalimi اlغaybi والشhahaadة fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waxaa laydiin celinayaa baa la yidhi caalimu اlغaybi والشhahaadة allaha waxa maqan iyo waxa joogaba og allaha aan waxba ka qarsoonayn allaha og wax kastoo aad samaysay hadduu yahay waxaad qalbiga ku caqiidayso ku haysatay iyo hadduu yahay waxaad ficil ahaanba u samaysay wax kasta oo kaa soo baxay qofka bini aadamkaa rabbiga og oo weliba ogaan qura maaha fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay leeyahy oo idin warrami doona waxaad samayseen oo dhan kullu nafsin daa'iqatu اlmowt wainama tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanna faqad faaz wama alxayaaةu اdunya ila mataacu اlguruur naf waliba geeriday dhadhamin baa ilaahay leeyahy kadibna wixii aad shaqaysateen baa laydiin oofinaya laydiin dhammaystiraya ninkii naar laga durkiyo ee janno la geliyo kaas baa liibaanay baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala xaqiiqada afraad xaqiiqada koowaad waa inaad amal badan tahay xaqiiqada labaadna waxa weeyaan in laabud aad geeriyoon doonto xaqiiqada saddexaadna waxa weeya inaad rabbi la kulmi doonto iyo xisaab iyo qiyaame iyo janno iyo naar shayga afraad aynu tilmaamaynaa wuxuu waa wada tilmaamaynaa uun waxaa layna faray arrinku mar hadduu caynkaa yahay inaynu amalka soo gaabinno adduunka rajada aan ka qabno iyo waxqabadkiisa adduunyo ku saabsan inaynu soo koobno geeridana inaynu xoog u xasuusanno ilaahay la kulankiisana inaynu xasuustiisa badinno saa awgeed baa ilaahay wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah xaqa tuqaati walaa tamuutun ilaa waantum muslimuun war kuwa iimaanka laga helayow ilaahay rumeeya kuwa iimaanka laga helayow alle cabsidiisa badiya itaquu اllah ilaahay ka cabsada oo ha geeriyoonnina baa la yidhi ha geeriyoonnina ilaa waantum muslimuun idinkoo muslima mooyaane oo ha geeriyoonta miyaynu isu haynaa wakhtiga la geeriyoonayo kaama haysid laakiin maxaa lagaa rabaa inaad isu hayso inaad islaamnimada laasimtid wakhtiga geeridu imanaysa garan maysid maxaa waad dhiman
ma barraad dhiman ma bil baad sii joogi ma sannadaad garan maysid laakiin waxaa lagu yidhi geeridu ha kuu timaado adoo diyaara adoo muslima oo ilaahay isu dhiibay geeridu ha kuu timaado walidalik baa awraadda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ina baray waxaa ka mid ah habeenkii markaad seexanayso inaad isa sii dhiibto tidhaahda ilaahu naftatan haddaad qabatana waxa aad dadka saalixiintaas aad u faxfadha ilaahu haddaad soo celisana yacni waxaad ku talagelaysaa wardigan aad akhriyaysaa macnihiisu waxa weeyaan waa seexanayaa se garan maayo inaan soo kici doono marka rajada waagu inuu kuu baryi doono baad meel iska dhigtay waa wardiga aynu akhriyayno markaynu seexanayno marka aad soo toostana wardi kale la yidhi oo akhri oo ah ilaahay inooleeya alxamdu lilaahi aladii axyaani bacda maa amatanii wa ilayhi nushuur ilaaha dib ii soo kiciyaan ku mahadinaya ilaahu jaanis baad siisay baad leedahay habeenkii markaad seexanaysana waxaad leedahay ilaahu naftan haddaad qabatana u naxariiso haddaad soo celisana saalixiinta waxaad ku ilaaliso ku ilaali haddaad soo toosto aragto inaad waa kuu baryo aad indhaa kala qaadayna waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa ilaahu adaa mudan adaa ammaanta leh adaan kugu mahadinaya geeri dabadeed i soo nooleeyey idan waxaa la tilmaamaya qofka muslimka inuu diyaar noqdo markaad sii seexanaysana geeraad diyaar u ahayd markaad soo toostayna waxaad u arkaysaa jaanis aad camal ku siiso ku samayso in lagu siiyey idan kaa wardi ka dhiga baa lagu yidhi haddaynu awraaddaynu akhrino habeenkii markaynu seexanay markaynu soo toosno aynu fahamno waxaynu garanaynaa in layna leeyahay istaciddu war diyaar noqdo oo waa walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun xaqiiqo shanaad baa jirta oo maxay ah iyadoo intaasoo xaqaa'iqa laynoo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi akaru nnaasi waa haafil dadka inta badani waa dhoohani waa moogani xaqaa'iqdaa agtiisa taalla ee nafta bini aadamka iyo hungurigeeda uu og yahay iyo waxay raadacaynayso ee uu ogyahay in geeriyi ka dambayso ee uu ogyahay gooruu dhimanaya inaanu garanaynin ee uu ogyahay qiyaame iyo xisaab iyo rabbi is-hortaagi inuu ka dambeeyo ee uu og yahay in loo sii sheego la yidhi war ha dhimanin adigoo muslima mooyaane intaasoo xaqaa'iqa isagoo og ayuu haddana bini aadamku haafil yihi hafla hafladu waa dhoohani waa waxay ahayd inaad xasuusato la ilaabayo nisyaan maaha waa hafla waa dhoohani waxay ahayd inaad xasuusato oo haddana aad moogan tahay waa waxay ahayd mar kasta inay xasuustiisu kula joogto oo sidii qof aan ogeyn aad u dhaqmayso hafladu markaa waxa weeyaan xaqaa'iqdaana waan rumaysanay haddana waxaan u dhaqmayaa sidii qofkii oo aan kiiba ahayn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyay iqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflatin mucriduun maa yaأtiihim min dikri min rabbihim muxdaثin ila istamacuuhu wahum yalcabuun laahiyatan quluubuhum dadka xisaabtoodu waa dhowaatay baa ilaahay leeyay laakiin xaalad ay ku sugan yihiin oo ah gafla iyo icraad iyagoo haafiliina oo rabbi ka sii jeeda oo qiyaamaha xasuustiisa ku badnayn oo xisaabta xasuusteedu ku badnayn ayuu nool yahay xagga rabbi waana wax lagu xasuusinaya ugama timaado cusubi baa ilaahay leeyay ilaa iyo waxay maqlaan iyagoo cayaaraya si jiddiya uma qaataan warka markaad si dhaba u qaadato waxaad ku tala gashaa inaad fuliso laakiin markaad qaadato warka maqashid adigoo aan jiddi ahayn adigoo aanay kaa dhab ahayn lacib baad iskaga jirtaa laahiyatan quluubuhum baa ilaahay ku tilmaamay walidalik baa ilaahay nebigiisii wuxuu ku leeyahay waandirhum yowma alxasra waandirhum yowma alxasra id qudiya alamru wahum fii gafla wahum laa yuuminuun waxaad u digtaa oo uga digtaa oo ugu digtaa yowmu alxasra maalinta calaacalka maalinta tiiraanyada iyo murugada uga dig barri markaad geeriyooto rabbi irjicuuntaa badan doonta ilaahu jaanisna sii ilaahu iceli waxaa la tilmaamayaa mashkiladda taagani inay tahay
maalintaa aad hadhow dib u murugoon doonto dib u tiiraayoon doonto uga dig baa ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala. haddaba ayuha alaxiba, maxaa keenaya inaynu haafiliin noqonno? maxaa keenaya inaynu tuulu اlamal rajayno inaynu weligaan noolaanayno? inaad tilaada kollayba waad ninka dhallinyaradii wuxuu is leeyahay kollayba 60 iyo horta waad gaadhi doontaa. ka 60 joogaana wuxuu is leeyahay malaa kollay ilaahay ilaa 80 90 waa ku gaadhsiin doonaa. idan dadku rajo qabaa uun xagga hore in wax ku hadheen maalmaha dambe kama gedisna maalmahaagii hore. kuwaad shalay soo martay iyo kuwa hadhay waa isku mid. maanta haddaad shaqaysan kari weydo berrina waa adagtay inaad shaqayso. bal mar kastoo aad da'i kuu sii korodho waxay u badan tahay in daalka iyo cajsiga iyo wahsiga iyo tamaryaridu kugu sii kordhi doonto. inta badan dadku marka wuxuu dantiisa gartaa goor aan u fulin karaynin, goor aan waxqabad lahayn. intuu waxqabadka leeyahayna waa haafil. saa awgeed hafladan waxaa keenay tuulu اlamal. rajo aad ka qabto bal horta kollayba waxooga baad noolaan doontaa, hadhow baad toobad keeni doontaa. kan rabbigii caasinaya ee maanta cisyaanka samaynaya woogii waxaan wadaa inuu cisyaan tahay, inuu ama zina tahay ama khamri tahay ama been tahay ama xaaraan tahay ama boob tahay ama dhac tahay ama qish tahay ama dulmi tahay. wuu ogyahay waxa kanuu samaynayaa inay xun tahay, laakiin wuxuu isku waaninayaa saa dambaad toobad keeni. barraad ilaahay uu soo noqonay barorta qoladan iska dhici saa dambe. watakunuu min bacdi qowman saalixiintii ilmo nebi yacquub walaalkood bay god ku sii wadaano waxay leeyihin aan dilloo god ku ridno, haddana waxay leeyihin gadaashii baynu dad fiican noqon doonnaa. isaga gadaashii ayaynu soo hagaagi doonnaa. ilaahay markaa wuxuu ina leeyahy innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba. geerida iyo qiyaamaha iyo waxa kan dambeeya iyagu wax fog bay u arkaan baa ilaahay yidhi, annaguna baa ilaahay leeyay wax dhow baanu u arkaynaa. waa amalkan iyo rajadan dheer iyaga wakhtiga wuu la dheeriyey. saa awgeed baa ilaahay gaaladii wuxuu yidhi darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihum اlamalu fasawfa yaclamuun. iska daa baa rabbi yidhi subxaanaه wa tacaala. daa maxaa loo daynayaa? ha iska cunaan baa la yidhi. maladaat اlxayaa, cunnada wax nafle ha moodaan oo ha iskaga raaxaystaan, ha ku tamatacaan. wayulhihum اlamalu fasawfa yaclamuun. oo ha mashquuliyo baa ilaahay leeya, amalku ha mashquuliyo. amalku rajo qabkaasi ha mashquuliyo. laakiin rabbi wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala fasawfa yaclamuun. siimaan dambe, wakhti dambe ayay fahmi doonaan. idan ayuha alaxiba, qasru اlamal sharciga wuu ku ammaanan yihi. inaad rajada soo koobto waa ammaan, waayo waxay keensanaysaa inaad xoogsato. oo maalan maanta haddii lagu yidhaahdo berraa lagu dilayaa, berrito ayaa lagu dilayaa, waxaad soconaysaa bal maanta wixii aad qabsan karta un haatan sii qabso. idan inaad amalkaaga soo koobtaa waa ammaan. inuu kula dheeraado oo tuululamal aad rajo dheer sii qaadaana madmuum bay ku tahay qur-aanka. qur-aanka waxay ku tahay waxaan ammaanayn. walidalik baa ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy afara'ayta waxaa rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala afara'ayta in matacnaahum siniin. bal ka warran baa ilaahay leeyahy subxaanaه wa tacaala in matacnaahum siniin. dadkan haddaanu sannado u raaxayn, haddii cimrigaba loo dheereeyo, uma ja'ahum maa kaanuu yuucaduun. cimrigaba haddii loo dheereeya laakiin kadib uu u yimaado wixii loo yaboohayay, maa qana canhum maa kaanuu yumatacuun baa ilaahay yidhi. waxba kagama filo ka deeqi maayo
wixii ay ku soo raaxaysteen oo dhammi waxba noqon mayso yacni waxba kama jiraan baa ilaahay leeyahy saa awgeed baa ilaahay duul uu maagayabu wuxuu ku tilmaamay walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون إلهي سقو يهود كورميا وحا ليلي waxaad heli doontaa iyagoo ah kuwa ugu ilaalin badan ugu jacayl badan nolol على حياة أيا كانت على حياة ولا نكري nolol inuu jiro kuwa ugu jacayl badan yahuudiya inta mushrikiinta baad arki doontaa baa ilaahay leeyahay midkood wuxuu jecel yahay baa ilaahay yidhi 1000 sannadood in la nooleeyo laakiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala 1000 sano waxba maaha وما هو بمزحزحه من العذاب 1000 سنة عذاب كاعلين ميسو وبريتو 1000 سنة بريد دمانيسا سوقت بقى إلهي مؤمنين تستقوا الله هذلي وحليه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأني miyaanay gaadhin baa la leeyahay miyaanay dhicin kuwa mu'miniinta ahi inay wakhti gaadhaan qalbigoodu uu ilaahay dikrigiisa u khushuuco iyo waxa xaq lagu soo dejiyey wakhti ay waantoobaan weli miyaanay gaadhin baa la leeyahay dadka mu'miniinta ahi oo aanay la mid noqon baa ilaahay yidhi sidii kuwii iyaga ka horreeyay ahlu kitaabka ahaa qur'aanka waxyaabo badan oo ilaahay kuwii kutubta la siiyey inaga horreeyey lagu ceebeeyey oo aynu samaynayna dee ammaan noqon maayaan waa tajriba bashariya ayaa laynoo soo naqliyey taariikhdu waa meeluu bini aadamku ku cibro qaato tajaaribtii dadkii hore sidii kuwii kitaabka la siiyey ee wakhtigu uu ku dheeraaday ee dabeetana qalbi engaga qaaday baa ilaahay leeyahy wakhtigii ku dheeraaday waxay ka dhaxleen waa qalbi engeg sida ogeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga digayaa uu leeyahy laa yazaalu qalbu lkabiiri shaaban fi inayn xadiidka bukhaari kama zuulayo qalbiga qofka weyni laba dhallinyarunbuu ka ahaanaya yacni waxa weeyaan qofku waa gaboobayaa wax badanna wuu ka gaboobayaa ma awoodi karo laakiin laba weli waa dhallinyaro يعني لبا waa shay buu nabigu tilmaamaya ninka weyn iyo ka yari isku meel bay ka taagan yihiin oo waa maxay labadani حب الدنيا وطول الامل buu nabigu yiri adduunyo jacaylka adduunka marna lama naco adduunka iyo jeclaantiisa iyo noloshan iyo jeclaanteeda bini aadamku maftuur buu ku yahay laakiin waxa la inoogu talagalay inaynu nafta rabbayno oo aakhiro jacaylkeeda ku bedelano iyo tuulul amal inuu rajo ka qabo uun waad sii noolaan doontaa idan ayuha alaxiba alamalu fi dunya muhlaka adduunka rajadiisan dadku ay sii qabaana tirada badan leh waa waxa lagu halaagsamo aakhiro rajadeeda ayaa raxmo ah afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih ilaahay wuxuu leeyahay miyay siman yihiin kii aanu u yaboohnay yabooh fiican oo la kulmi doona yacni aakhiro u xoogsaday oo rabbina janno u ballan qaaday oo dabeetana la kulmay kaman matacnaahu mataaca alxayaati addunya uma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin kaa iyo miyay siman yihiin baa ilahay leeyahay midaan adduunka waxoogaa ku siiyey oo adduunka inuu ku bidhbidhsado la siiyey آخرة لكن كوا نار تلا حاضرين يا كميدا لا بد أسميه سميه يعني إلهي وحي سكان دين عدقيا نين أدونك وحوجا كهلاي سلطة يلعقيا وحوجا أنت بني آدم كور رادعية وكفهانه وأدونك أنت ونولا لو بدبدية لكن ما أنتو قد كوجلا نارتي سبلاب ميسو أدونك هدو كنتم سنة لحدا سنة تضوات سوحو بدبد صدبه هدو لما يستو أو عذاب بلابو waxaa hore waxba kama jiraan ka iyo miyay siman yihiin baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kii adduunka aan wax badan ku hayninba laakiin aakhiro yimi isagoo rabbigii rumaysan
wixii alla u yabohayna lagu abaalmarinayo in rajadeennu dheeraato aynu yididiiladan tirada badan la qabno maxaa keena waxay culummadu yidhahdaan laba shay baa keena midi waa xubu dunyaagaynu sheegnay waa adduun jacayl oo qofku waxa uu la nool yahay la noolaado ee uu markaa hayo waxa maqan inta badan ma dhaafsado bal tuxibuuna alcaajila watadaruuna alaakhira tan hore degdegta badan le aan la nooshiin ayaa jeceshiin baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala tii dambe ee lagu waarayeyna waa ilaabaysaan idan xubu dunya ka labaadna waa adduunkan isaga jacaylkiisa man kaana yuriidu alxayaaةa اddunya baa ilaahay yidhi man kaana yuriid alxayaaةa اddunya waziinataha ninka doonaya adduunka noloshiisa iyo quruxdeeda hadda u fiirso erayga iraada baa laga cabiray man kaana yuriid baa la yidhi ninkii doonaya nolosha adduun iyo quruxdeeda nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wixii ay shaqaystaan adduunka waa siinaynaa wahum fiiha laa yubkhasuun lagamana nuqsaaminayo laakiin ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlaakhirati ila الnaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaطilu ma kaanuu yacmaluun laakiin kuwaasi baa ilaahay leeya waa kuwa aan aakhiro waxba ku lahayn naar mooyaane wax kale aakhiro ma leh waxay shaqeeyeenna waa la buriyey camalkooduna waa baaطil yacni adduun buu u noolaa adduunkii wuxuu ka calaf qaaday buu leeyahay aakhiro mar haddaanu ku xisaabtamin aakhiro goormaad ku xisaabtamaysaa marka wax kastoo aad haysato intaad aakhiro qabadsiisaa ay kaala qurux badan tahay intaad adduunka ku hayso wakhtigaad ku bixisay aakhiraad ka jeceshay wakhtigaad adduunka ku bixisay cilmigaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay cilmigaad adduunka ku bixisay hantidaad aakhiro ku bixisay baad ka jeceshay hantidaad adduun ku bixisay idan qofka kani aakhira uga muhiimsan ama cagsigu bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunya wاlaakhiraةu khayru waabqaa baa ilaahay yidhi waxaad door bidaysaa nolosha adduunyo nolosha adduunyaad door bidaysaan waa kii nebigu lahaa calayh الsalaaةu wasalaam waar midkeen baa xoolaha carruurtiisu xoolaha qofka dhaxlaya agtiisa lagaga jecel yahay xooluhu isagu leeyihi yani wuxuu nebigu tilmaamaya waxaad la sii baxdayna inay waxaagii yihiin waxaad ka tagtayna de inaad ka tagtay cid kale ku tasarufi doonta idan adduunye jacaylku waa waxa koowaada dhibta keena waana wax laynagu itixaamay watuxibuuna almaala xubban jamma xoolaha xog baa u jeceshin baa la yidhi waa cala alfitra waa suu bini aadamku u badan yihi waxaa ilaahay ku tilmaamaya wainahu lixubi اlkhayri la shadiid xoolaha jacaylkooda waa ku adag yihi laakiin maxaa la tilmaamay aakhiro markay tahay waxaa la yidhi waa kuwa bixinaya iyagoo jecel abuurkaaga waa inaad xoola jeceshay waa saa ilaahay ku abuuray laakiin waxaa la tilmaamay haddana kuwa aakhiro waxgeysanaya inay maxay yihiin kuwa bixinaya iyagoo necab bay bixiyaan xoolaha maya isagoo xoolihii weli jecel ayuu bixinayaa saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa inay bixinayaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun baa ilaahay ku tilmaamaya ama ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay masaakiinta iyo dadka baahan iyo kuwan wax siinayaan wayuطcimuuna الطacaama calىa xubih miskiina wayatiima waasiira ilahay wuxuu kaaga markhaati kacaya adoo bixinaya hadda inaad adduunkan jeclayd laakiin inaad naftaada ka goyso aad ku tala gashay inaad aakhiro u horaysiiso shayga labaad ee amalka dheerayntiisa keensada iyo adduun jacaylka kani waa aljahlu bay yidhaahdaan kow aljahlu billaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay oo aad garan weydo ilaahay haddaad dhab u garanayso dhab baad u weynaynaysa
haddaad dhab u garanayso dhab baad awaamirtiisa u raacaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa haddaad baratay inuu kariim yahay hani yahay xakiim yahay caliim yahay khabiir yahay sifaadkaasaad la dhaqmaysaa idan waxaad noqonaysaa qof rabbigii toos ugu xidhan haddaad si aanad garanaynbo gaal ka noqoto ama haafil noqoto ama jaahil noqoto wamaa qadaru llaha xaqa qadrihigaad ku dhacaysa kuwii la yidhi alle ma weyneeyaan weynidu xaqu leeyahy waxaa la mid ah aljahlu bixaqiiqati dunya adduunka haddaanad xaqiiqadiisa garanaynin ilaahay in badan buu qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa kamahali kaytin acjaba alkufaara nabaatuhu uma yahiidu fataraahu musfara wuxuu la mid tahay baa la yidhi adduunkani sidii roobkaa da-ay ee meeshu yaro cagaarantay ee hedhowna baabaaday waxaa ilaahay inoogu tilmaamayaa inay tahay un tafaakhur iyo takaahur iyo caynka kan waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa alhaakum الtakaaثuru xataa zurtum اlmaqaabir kalaa sawfa taclamuuna uma kalaa sawfa taclam xaqiiqaة اdunya markay kaa libidho iyana waa wax keena dhibta aynu ka warramayno waxaa la mid ah xaqiiqaة اlaakhira markaad garan weydo qiyaamaha 50 sannadood meel la taagnaanayo 50 sannadood qiyaas meel la taagnaanayso lagu xisaabayo basharka oo dhami taagan yihi khalaa'iqdoo dhami waxaa dembi gashay ee arkayso lagugu markhaati furayo 50 sana bacdahaa janno iyo naar iyo siraad iyo xawd iyo waxaasoo dhan haddaad ilowdo qofku hadduu mahlakada xasuusan yahay maalan haddii lagu yidhaahdo kayntaa libaax baa ku jira aad ku qasbantay inaad kaynta ka tallowdo adigoo aan libaax ogayn oo iska laafiyoonaya miyaad maraysaa mise waxaad maraysaa adigoo labada hareeroodba eegaya oo hor iyo gadaal iyo sanqadh kasta jabaq kasta kabahaagu kuu baxayaan ta kala daaya adoo wada dheg ah oo wada il ah oo soo jeeda oo aan luloonaynin oo riyoonaynin baad maraysaa waayo meesha in mahlaka ka jirta baad ogtay ninka aakhiro ogi waa caynka aakhiro iyo waxa dambeeya ninka ogi waxaa waagu u baryayaa isagoo soo jeeda wax maqlaya wax arkaya eegaya dunida ku xisaabtamaya maxaa rabbi ogolaya maxaanu se ogolayn maxaa lagu badbaadaya maxaanse lagu badbaadaynin isagoo xayaya qalbi nool wata ayuu waagu u baryayaa sidaa awgeed aljahlu bixaqiiqati اdunya wa bixaqiiqati اlaakhira والجهل بعظمة الله سبحانه وتعالى الجهل بقى أساسه أمل كان اسكدر حب الدنيا بقى أساسه سيدا أوجد علماء في عربي واحد كان رسارة واحد إذا ده أمل يا طمع يا رجاء واحد هذا واحد بعيد كأن لقارين هنجريين تيس أمل بالله إلى هذا واحد قريب كأن لقاري كرنا هنجري طمع بالغت الماما waxa u dhaxeeyana bay yiraahdeen hungurigiisa rajaa baa la yiraahdaa walidaalika ilaahay naxariistiisu inay dhowdahay nabi ibraahim markuu tilmaamay wuxuu walladii atmacu an yaghfira li khati'ati yawm ad-din idan ayuha al-ahibba nabigu alayhi salatu wassalaam adduun baa soo galay nabiga ilaahay imtixaanaadka dhan wuu mariyay faqri wuu soo maray iyo wax la'aan cabsi wuu soo maray iyadoo laga xoog badan iyo saxaabadiisa la laynayo soo maray isagoo xoog badan buu soo maray isagoo ciidamadiisu ay qabsanayaan dhulkii laga soo saaro soo maray isagoo hantidu intay soo gashay ku wax weydiistay laba buurood dhexdood xoolo daaqaya nin qura kule kaxaysuu soo maray oo intuu tolkii u tago uu leeyahay nebi maxamed wuxuu bixinayaa caطaa'a man laa yakhsha alfaqr midaan faqriba ka baqayn sidii buu wax u bixinayaa ee islaama oo xoolaa soo helaysa aanu tilmaamayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maca annu saxaaba la noolayd wax haysata haddana wuxuu door biday aلzuhdu ayuu isagu door biday zuhdigu waxa weeyaan adduunku inaanu qalbigaaga daynin gacantaada dago hadduu ku soo galana gacantaada inuu ku jiro laakiin nolosha adiga kuu gaara inaad zuhdiga doorato walidaalik
ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebigu zuhdiga doortay malag baa ilaahay u soo diray dabeetana waxaa lagu yidhi ma waxaad rabtaa nebi ama rasuul boqora inaad noqoto mise cabdan rasuulan baad doonaysa jibriil baa ku yidhi tawaadic lilah ilaahay isu dhuldhig nebi maxamed wuxuu doortay inuu noqdo cabdan rasuula cabdi rasuula kow waxaa nebigu kaa markuu doortay haweenka badh bay ku yara adkaatay biilkii iyo noloshii yara adkaatay dabeetana waxay warsadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam in nolosha loo kordhiyo ilaahay wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajik nebi alla waxaad haweenkaaga ku tidhaahdaa in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wasarixkunna saraaxan jamiila haddaad nolosha adduun doonaysaan waan idin siinayaa laakiin anigu ku jiri maayo waan idin sii daynayaa dheh nolosha adduunya dhaldhalaalkeedu wax idinla weyn hadduu yahay waa idin siin waayo nimcadaa waa helaysaan laakiin maca daalika waa idin sii daynayaa haddaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhire doonaysaanna ajar weyn baa heli doontaan waxay doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo maalinta aakhiro walidaalik baa isagoo meel seexday oo salligii uu ku seexday dhabarkiisa ku yaallo salliga waa taqaaniin dermada marka lagu seexday aan waxba jidhkaaga ka xigin hadhow waxaad soo kacaysaa isagoo jidhkaaga sawirkaasi uu ku sawiran yihi cumar baa arko wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah low ittakhadta firaashan awhar min haada maad samaysatid furaash kan kuu yaro dhaamo meel ka yaro jirecsan ilaahay rasuulkiisa iyo maad seexatid cumar nabigu wuxuu ku yidhi wamaa lii walidunya war cumarow aniga iyo adduun maxaa nala kala galay wamaa lii walidunya ayuu ku celiyey wamaa lidunya ani iyo adduun maxaana kala galay waladii nafsii biyadih aniga allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay buu nebigu leeyahy tusaalahayga iyo tusaalaha adduun wuxuu yahay nin socoto ah oo maalin xagaaya geed hadh la soo maray oo hadhsaday saacad maalinta ka mid a oo dabeetana ka tegey tusaaluu nebigu bixinaya waxa wayaan calayhi salaatu wasalaam maalin cadceed kulayl jiro oo xagaaya haddaad safar gasho oo cadceeddu markay kugu yaro kululaato aad geed hadhsato balaankaaga geed hadhsigani muxuu yihi ways odhanaysaa geedkan daar yaroo fiican ka dhisaad maanta hadhsatide boqorrada kibrey maanta saasay yeelaan guri baad arkaysaa la dhisay oo la yidhaha boqorku sanadkii buu maalin yimaadaa mid boqorradan carbeed ka mid ah waxaa la tilmaamayay gurigiisu 365 qoloo la seexdo hurduuleeye oo loogu beegay maalinba cadceeddu intay dhaqaaqayso kijada iyo musqulaha ku yaallaa 700 ah waa bini aadamku si uu nool yahay nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nin safaroo geed hadhsaday ayuun baan la mid ahay buu leeyahy intan adduunka aan joogaaba geed la hadhsaday kama gedisna idan ayuha alaxiba xalku waa qasru اlamal xalku waa inaynu yididiiladan dheer soo gaabinnaa xalku waxa weeyaan inaynu aakhiro u diyaar garowno waa xaqiiqa maalin aan fogeyn waa lagu qaadi uun inaynu diyaar noqonno saa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabadiisa ka mid oo dhallinyaro ah cabdillaahi bnu cumar waa nin dhallinyaro ah shaab ah waaya cabdillaahi dee waa ninkii qaswata uxud laga reebay la yidhi adugu waxaa tahayeen weli maad qaangaadhin qaangaadh la-aan baa looga reebay dagaalka marka nin aad u dhallinyaro weeyaan ninkaa dhallinyaradaa buu nebigu la talinaya intuu garabka qabtay buu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi dunya kaannaka gariibun aw cabir sabiil haddii warka nin weyn lagu odhan lahaa waxaad odhan lahayd dee waa nin warka dunida soo dhameeyey oo waxaa la leeyahy war aakhire adigu kollay cimrigaagii qaadataye aakhire usii diyaargarow baa lagu yidhi laakiin ma aha waa nin iminka soo korayo hadda qaangaadhay ama qaangaadhaya wakhtigaa ku jira nin wakhtigaa ku jiruu nebigu wuxuu leeyahy kun fi dunya kaannaka gariib adduunka waxaad ku ahaataa sidii qof stranger ah qof meel aan safar ku yahay soo galay aw cabir sabiil ama qof waddo goynaya adduunka sidaa ku noqo qadiyaddaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkaa yare cabdillaahi bnu cumar ibnu اlkhadaab oo uu sheegay wuu fahmay
wiilkaasi waa weyleeyey saxaabadu waxay naga gedisaneed waa taa waxa loo sheegaa bay weyleynayeen way fahmayeen kadib cabdilaahi dadka markuu la dardaarmayo wuxuu ku odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax waidaa asbaxta falaa tantadir الmasaa wakhud min sixatika limaradik wamin xayaatika limowtik imaam albukhaari soo saaray wuxuu dadka ku odhan jiray ibnu cumarna war hooy haddaad garabaysato waa beriga ha sugin iminka aakhire u sii diyaargarow waagaa kuu beryi doono berrina waad sii shaqo tegi doontaa oo halkii baad arrinka ka sii wadi doontaa taa ha sugine xisaabta waxaad ku dartaa caawa hadday kaa baxdo maxaa xala falaa tantadir الصabaax wuxuu ku yidhi haddaad waa berisatana galabnimada ha sugin xisaabtan caafimaadka intaad qabto bukaankaaga u sii qaado dadku markuu dhakhtarka gale xanuunsado haddaad imika dhakhtarka tagto oo aad dadka weydiisa maa hiya umniyatak maxaad rajaynaysaa maxaad jeceshay inaad hesho maxay odhanayaan dadka dhakhtar ku jira inaan caafimaado soo maaha inuu ka kaco ka suuqa jooga haddaad ku tidhahdo oo bal caafimaadkaaga ka warran oo maxaan ku haystaa waaba gaajoonayaa buu leeyahy keerna umniya buu yey wuxuu is leeyahay ilaahu yaa marunku kiciya hadduu bilyaneer yahay wuxuu is leeyahay bilyanka haddii la yidhaahdo wadnaa lagugu bedelaya ma bixinaysaa wuu ogolyihi waar waan iska xoogsan doonaa nolosha dib baan u bilaabi buu leeyahay bal horta wixii lagu caafimaadayoon ha lagu bixiyo laakiin haddii la yidhaahdo 100 kun ka bixi waar xooluu dhaqdhaqiguma soo gelin buu leeyahay kunkaa qaata saxanka maaha qof gaara ma waa dhammaanteen waa saa inuu haddaanad adigu naftaada wax ka bedelin waa saad u abuurantay saa daraaddeed buu ibnu cumar wuxuu leeyahy waar caafimaadka intaad ku jirto u sahay qaado bukaankaaga berri inaad caafimaad qabi doonto garan maysid caawaad caafimaad qabtaa waad tukan kartaa waad wardii kartaa waad nebiga ku salliyi kartaa calayhi salaatu wasalaam waxaad doontaad samayn kartaa laakiin berri inaad weysaysan kari weydaababa dhici karta jamac iyo jamaacada inaad gaadhi weydaaba dhici wax kastaa dhici kara wa min xayaatika limowtik geeridaada u sii qaada buu yidhi maxay noloshaada walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ka sugan wuxuu u tilmaamayey isagoo nin saxaabiya waaninayay wuxuu ku yidhi war shan u qaada buu ku yidhi dhallinyaronimadaada ka faa'iidayso inta aanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iidayso inta aanad bukoonin waxayntaada haninimadaada ka faa'iidayso inta aanad faqrinin inta badan dadku markuu xooluhu dhaafaan buu is idhahdaa haddaad wax ka bixin lahayd haddaad tolka wax ka tari lahayd haddaad aakhire wax geysan lahayd firaaqadaada ka faa'iidaysa buu nebigu leeyay inta aanad shuquloonin dhallinyaradu inta badan waxay dhahaa firaaqada xaggaynu wakhtiga ku soo dillaa maanta waa cimrigaagii qayb ka mid a ayaa le xaggaan ku tuuraa wakhtiga xaggaynu ku dillaa xaggaynu isku dhaafinaa maqaaxidaa la tegaya maanta o dhan baa la sheekaynaya waa cimrigaagii ka mid a maanta o dhan baa t v la daawanaya wax laga helayaa ma jiro noloshaada haddii la xisaabiyo intaad t v-ga daawatay intaasoo sannadood bay soo baxaysaa intaad maqaaxi fadhiday intaasoo sannadood bay ka warran haddii lagu dhaha intaa cimriga ha lagaa jaro maad aqbasheen 10 sano dhowr iyo 10 sano markay soo baxda maad aqbasheen markaad haysato se saad u isticmaalaysaa waad saydhinaysaa qofka bini aadamkii hantida ugu weyne uu haystaa waa cimrigiisa hantida ugu weyne aad haysataa waa wakhtigan yar wakhtigiibaaba waxaad ku qabatay daaya aad la'day meelaad ku disho xagaynu wakhtiga isku dhaafina xagaynu wakhtiga ku dilla waa adigoo leh cimriga in ka mid a xaggaan ku tuuraa noloshaydii cimrigayga in ka mid a khasaaraha aanan rabina xaggaan geeya walidalik buu nebigu wuxuu leeyay firaaqaaga ka faa'iidayso inta aanad mashquulin qofku mar kasta uu sii weynaadaba mashquulkiisaa badanaya waayo xidhiidhku bulshada la leeyaa ka badan ninka dhallinyarada ee xidhiidhku la leeyahy saa daraaddeed qofku da'diisu mar kastoo ay yartayba wakhtigiisa o dhan isagaa leh laakiin inta badan dhallinyaradu ma garato kama faa'iidayso qofku markuu sii weynaadabana yaa wakhtiga kuu kordhiya buu israa 24 saacadood baa ku yaraada stress buu qaadaa suu leeyahay hebelna ballan baan la leeyahay xaggana ballan baan ka leeyahay reerkiina xagguu sugaya qoladana waxan bay rabtaa idan nebigu wuxuu leeyahay war intaanad mashquulin firaaqada ka faa'iidee intaydan geeriyoon baa nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam
nolosha ka faa'iidayso ayuha alaxiba rajadan tirada badan leh qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa inay tahay aaladda ibliisku uu bini aadamka ku lumiyo waa farsamooyinka ibliis adeegsado ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy ina aladiina irtaduu calaa adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum اlhuda الشayطaanu sawala lahum waamlaa lahum baa ilahay yidhi kuwan diinta ka noqday iyagoo hanuunka intuu u caddaaday kadib shayطaankaa wax u qurxiyey oo rajo geliyey baa ilaahay leeyahy idan waamlaa lahum amalkan dheeri waa farsamada shaydaan uu dadka ku lumiyo nebi aadam muxuu ku yidhi markuu rabay inuu geedka cuno yacni waa baahi bini aadamku uu qabo walidaalika aadam ba halkaasaa laga galay cimrigaa lagu dheeraynayaa baa lagu yidhi qaala yaa aadamu hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla geedka waaritaanka ma ku tusaa buu ku yidhi geed aad ilaahay ku caasiyayso ma ku tusaa ma odhanin ee nebi aadam waxaa loo sheegay geed haddaad cunto aad in badan jirayso aadaniya intuu dhalayba inay in badan jiraan way jecel yihiin laakiin waxaa rasmiga ahi waxa weeyaan qofku inuu diyaar noqdo maxaa cilaaj u ah arrintan abuurkeenna ah waxaa cilaaj u ah dikru اlmowti wاlaakhira aakhira xusuusteeda inaynu badinno inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba baa ilaahay leeyay dadku wax fog buu u arkayaa annana wax dhow baanu u aragnaa buu nebigu ayuu rabbi leeyahy subxaanaه wa tacaala nebiguna wuxuu leeyay calayhi الsalaaةu wasalaam xadiid ibn abi dunya uu soo saaray sheekh alalbaanina xasan ku tilmaamay najaa أwalu hadihi اlأumma biاlyaqiini waالzuhd ummaddatan dadkeedii hore saxaabadii iyo dadkeedii hore waxay ku badbaadeen buu nebigu yidhi yaqiin ay ilaahay iyo aakhire iyo diinkooda yaqiin ku qabaanoo rumaysay inay shaki kaga jirin iyo zuhdi adduunku oo ahun gurigiisa iska yareeyeen adduunya jacaylka oo ay zuhdi ka qaateen iyo yaqiin ay rabbigood iyo aakhire iyo wixii loo sheegay ku qabaan wayahlik aakhiru haadihi اlumma buu nebigu leeyahy ummaddan inteeda dambena waxay ku halaagsami doontaa maxay bilbukhli waalamal buu nebigu yidhi gacanadayg dhabcalnimo gacanadayg qofka oo is yidhaahdo un adiga kuguma filla bini aadamku wax kasta oo is haysto ka dambaysu buu ka sii baqayaa faqru ka cabsi qabaa aadaan waa caynkaa dabeetana nebigu wuxuu leeyahy ummadda dambe waxay ku halaagsami doontaa laba shay gacan adayg iyo amal rajo in shaa allah berrina waad sii noolaan doontaa sannadaa weli kuu hadhay wakhtaa hadhaye weli dhallinyaraatu shaydaanku ku odhan adiga weli kaama dhowada imkaad bilowdayba waa labaday ku halaagsameen buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii tirmidi ibnu maaja warinayeen imaamu nawowina uu riyaadkiisa ku soo saaray sheekh alalbaanina dacfiga ku sheegayey macnuuse wuu saxiix yahay wuxuu tilmaamayaa alkayisu man daana nafsahu wacamila lima bacda almowt kayisku waa caaqilka waa qofka kasmada fiican nebigu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam hadduu xadiidku sugan yahay kayisku qofka caqliga badan leh waa qofka geerida waxa ka dambeeya u xoogsada hubaal waxa ah inay xikmad saxiixa tahay geerida waxa ka dambeeya qofka u xoogsada caajiskuna qofka tamarta daran lena waa qofka naftiisu hawadiisa iska raacda watamanaa cala اllahi اlamaani yani ilaahayna uun in sha allah in allaha gafuuru raxiim rajadana iska qaba idan ayuha alaxiba ilahay wuxuu ina leeyay laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءa yujza bih yididiiladiinna iyo umniyadiinna iyo waxay iska rajaynaysaan ahlu kitaabka iyo idinka toona maaha baa ilahay yidhi muslimka iyo kristan iyo yuhuud baa loo garnaqay ilahay wuxuu leeyay labadiinna qoloba sheegashadaa sheeganaysa inay rajada qabtaan arrinku maaha ee waa maxay man yacmal suuءa yujza bih nin waliba wuxuu shaqaystaa buu leeya rabbi leeyi waman araada alaakhira wasacaa laha sacyaha araada
kuwii hore waxaa la tilmaamay yuriiduuna alxayaata addunya waziinataha kuwanna waa nafsu shay waman araada alaakhira aakhira ninka doonaya qasdigiisu aakhiraye ma intuu aakhiro dooray buu iska fadhiistay maya xaraka iyo dhaqdhaqaaqna wuu ku daray wasaca laha sacyaha baa ilaahay shaqada aakhirana qabtay aakhira shaqo gaaray leedahay wasaca laha sacyaha baa ilaahay qofka aakhiro raadcaynaya liwajhi illaahi wax u samaynaya sacyigii loo baahnaana la imanaya isagoo mu'mina fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura baa ilaahay yidhi kuwaasi waxay qabteen iyo sacyigooda waa laga abaalmarinaya ayuha alaxiba maanta waxaad qaban karto ayaad berri u calaacali saa daraaddeed maanta inaad u diyaargarowdaaba habboon xadiid imaam aطabraani isnaad xasana uu ku soo saaray sheekh alalbaanina saxiixu tarkiibka ku aroorinaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaal buu soo maray nebigu markaasuu wuxuu yidhi man saaxibu hada alqabr waan xabaashani waa xabaashi kuma markaasaa la yidhi waa hebel waa nin dhintoo meyda xabaashii ayuu nebigu isdul taago wuxuu yidhi xabaashani waa kuma waxaa lagu yidhi xabaashan hebel baa ku jira wuxuu nebigu saxaabadii intuu ku jeesto markaa wuxuu yidhi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum buu nebigu yidhi laba ragcadood oo salaada u tukado ayaa maanta ninkani ka jeceliyey adduunka haysataan oo dhan ninkan haddii la yidhaahdo adduunka oo dhan iyo laba ragcadood keebaad dooranaysaa laba ragcadood buu ka jeceliyey buu nebigu u tilmaamay yani xabaal dusheed buu nebigu ku wacdinayaa saxaabadiisa waxaanu u sheegayaa laba ragcadood marka la gaadho halkaasi inay ka qiimo badan tahay wixii dunida lasoo qabto oo dhan haddii amalku iska dheeraado oo diyaargarowgu yaraado oo dadku sidaa ku dhintaan calaacal baa ka dambayn doona yaa laytanii qadamtu lixayaati rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarakt ilaahayna bini aadamka uu yaqaanaayo wuxuu tilmaamay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu baa ilahay yidhi wax ka cajab badan bini aadamka abcigiisa haddii la celin lahaa baa ilaahay yidhi halkii un bay ka bilaabi lahaayeen haddana hariib soo maaha ninkan intuu soo arka naar iyo balaayada jirta markuu halkan yimaado haddana halkii un dib uga maysi karaa hadduu dib loo celiyo baa ilahay yidhi halkii un bay ka maysi lahaayeen waayo fitratu linsaan waa tii uun laakiin qofku hadduu ku talagalo ilahay wuxuuna leeya yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah waltandur nafsun maa qadamat liqadin waataquu allaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون warkuwa iimaanka laga helayo wara la ka cabsado berri ka fakara baa layidhi nafi waxay berri u dhigatay aakhiro waxaad geysatay kaa eeg baa ilaahay yidhi idan ayuha alaxiba cilaajka ugu weyne masalada tani waa xadiidka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi أكثروا من ذكر هادم اللذات بدي أبو النبي عليه الصلاة والسلام حصوصتان مع معانك كجوية مع معانك كجوية وجيرده بقولك قال هذا وحن أركي قال هذا ما تشعل جيرده إلا قورنا لا فردان هدي جيرية وحالة وكالة ضريران وكاك عيا إن إلا بان بيك تشعلي ما تشعل inaad xabaal iyo geeri iyo baabka inaad agtooda kaga waranto ma jecla inay siilowsiyaan bay rabaan nabiguna wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam xasuusta geerida badiya oo xasuusta geeridu waxay noqonaysaa markaynu caawa masaajid ka baxna haddaad tidhaahdo war bal caawa hadday naftu soo noqon weydo talow xaggaan qaban dee waad xisaabtamaysaa caawa haddaad tidhaahdo war naftu xaggay qaban hadday baxdo waad xisaabtamay sida awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam geerida xasuusteeda badiya idan ayuha alaxiba amalka tirada badan leh adduunya jacaylka tirada badan leh khaflada tan dadka ku dhacday yaynan sida gaalku u fakero u fakerin gaalku intaasunbaa u muuqataa maadadaa yar adduun inaad gaalun kula loolanto aakhiraba ilowdo waa cajab dadka muslimiintii waxay u baahan yihiin inay iyagu aakhiro xasuustaan dadka kalena inay aakhiro xasuusiyaan nolosheennu markaynu xisaabinno inay aakhiro boos ku yeelato maanta waxaan qabanayo inaan ku xisaabtamo aakhire maxaan geystay caawa markaan seexanaya inaan ku xisaabtamo
waxaan soo sameeyey waagu markuu bariyey ilaa iyo gobolku intuu dhacayay ama waad hadlaysay ama mid hadlayaa degaysanaysay socanka maaha waagu markuu bariyey baynu hadalka bilownaa haddaanaad adugu hadlayna mid kaloo hadlayaa degaysataa markaad seexato bal xisaabiyo intii aad maanta maqashay ama ku hadashay imisaa kitaabka fiican kuugu qoran baad u malaynaysaa imisaad saladay baad ajar ka helaysaa imisaad se ajar ka helayna idan hadalkaagu warduu u badan lahaa haddii xisaabtankaagu badan yahay warku wuxuu ku kooban yahay oo naftayda iyo tiinaba ku waaninaya noloshan aynu israacinay aan ka gaabsanno macnaheedu ma aha yaan la xoogsanaya caynkan xoogso laakiin xoogsi aakhire ku geynaya xoogso markaad xoogsanayso xalaal xoogso xalaashaas iyo cibaadaadkaaga iyo diinkaaga ku dhaafinin ku talagalun caawa hadday kaa baxdo waxaad ilaahay la hortegi lahay aqwaasha salafka laga soo arooriyo haddaynu akhrino wakhtigu kuma filla laakiin aqwaal badan ba salafku waxay tilmaamayaan rag ku xisaabtami jiray salaadan salaadeeda inaad tukanayn anigu berri baa is yidhi ma ilaa berri midi wuxuu yidhi anigu ilaa berri kuma xisaabtama ilaa caawa waad noloshaad dheeraysatay buu ku yidhi anigu salaadan salaada ku xigta inaanan gaadhayn baan ku xisaabtamaa buu yidhi idan tanun baan si fiican isdhaha u tuko ilaa tii dambe lama hubo inaad gaadhi doontee hadduu arrinku saa yahay salaadaheenna way hagaagayaan salaad khushuuc lay noqonaysa haddaad se isleedahay kollay maalmaad sii jiri doontaa kuwa dambead hagaajin baad iska dhaadhicin khaatimadaad fiicnaysiin doontaa ilahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu khaatimada khayr inoogu khatimo kuwii aakhiradooda ka fakerayna alla inaga yeelo inta aakhiro u xoogsatay adduunkana hilmaamin in rabbi inaga yeelo صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا الله لكم وبارك الله فيكم ورفع مقامكم في الدنيا والآخرة شيخ الله سبحانه وتعالى أكبر خلقنا ونوفق فحاول شيء على المسلمين حيث الدعاء شيخ إن شاء الله تعالى